السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وعشر كي تخناها ويندوز 10 maanta casharkan waxaan ku eegaynaa samaynta waxyaalaha badan oo kala duwan isla markiiba waxa loo yaqaano multitasking ama adigoo samaynaya dhowr wax hal mar. laba qaybood ayaan ka eegaynaa oo Windows 10 ku fududeynayso. kan koowaad waxa weeye snap windows ama adigoo daaqadihii isgees dhigaya si macnaha isu miisaaman si aad hal daaqad wax uga qortid adigoo laba daaqadood oo ku furan ama laba application aad screenka u soo saadid ama ka badanba dhowr application screenka adigoo markaa ka wada shaqaynaya. qaybta labaad waxa weeye virtual desktop ama desktop aan run ahayn oo hadda sida desktop kan aan u jeedno uu desktop computerkayga uu yahay. waxaad samayn kartaa virtual desktop oo aan run ahayn si aad markaas kaasna aad wax ugu furtid daaqado uga soo saadid ama ka badanba dhowr desktop oo virtual ayaad samayn kartaa. marka dib aan ka eegaynaa si aad marka taas u samaysid settingka aad tegaysid si aad taas macnaha multitasking u samaysid waxa weeye waxaad tegaysaa start ayaa gujinaysaa waxaad tegaysaa settings markaad tagtid waxaad tegaysaa system markaad tagtid waxaad tegaysaa multitasking meeshan ugu horeysa oranaysa snap in waxay kuu fududeynaysaa inaad daaqadaha isgees saarsaadid ama iska dulmarisid oo hal screen aad dhowr daaqadood ka soo saadid oo isgees saaran ama isdul saaran. qaybahan kale oo saddexdan optionna waxa weeye waxay ku siinayaan waa untan unbay la xiriiraan oo haddii aad markaa daaqada geeska saadid daaqada kale si automatic ayay markaa isul ekaysiinaysaa. tan hoose waxay daaqad markaa gees saadid tan kalena kuwa kalena geeska kale ka soo saaraysaa. tan hoose isla markiiba laba daaqadood inay si guest to guest ay u joogaan ayay ku samaynaysaa. marka si aad taa u samaysid waa qaybtan kore ah oo aan ku tuso waxaan ku tusayaa qaabka uu shaqeeyo. hadda waxaan idinka soo qaad waxaan furay application waxaan kaloo furay browser. marka waxaan rabaa inaan midna geeskan dhigo si aan mid wax uga koobi gareeyo midna wax ugu qoro. marka waxaan laba siyaan samayn karaa. kan hadda ii furan oo ah browserka Chrome ayaan geeska midigta dhigi karaa si aan taa u sameeyo. laba siyaan ku samayn karaa. tan koowaad oo aniga aan u malaynay inay fududahay waxa weeye haddii aad taabatid ama gujisid oo keyga ay ku sawiran tahay keyboardkaaga keyga ay ku sawiran tahay Windowska oo loo yaqaan Windows key haddaa gujisid iyo arrowga dhanka midigta u jeeda oo keyboardkaaga labadaa haddaa isku martaabatid waxay samaynaysaa snap uu samaynayaa oo Chromekii ayuu wuxuu saarayaa geeska midigta ah screenka saarayaa. kuwan qaybaha daaqadihii intii furnaydna geeskan bidixda buu ka soo saarayaa maadaama aan kii aan markaa joogay aan dhanka midigta u gudbiyay. waxaan kaloo samayn karaa haddaan kan rabo inaan dhanka bidixda geeyo sidoo kale window kii aan taabanayaa arrowga dhanka bidixda ayaan taabanayaa marka kuwii kale dhanka midigta ka soo saaraya. labadaasaan samayn karaa. tan haddaan rabo inaan weyneeyo marka daaqadahan hadda furan oo kuwii furan ka mid ahaa waa un gujinayaa taan rabo inaan weyneeyo. marka waxaan samayn karaa halkaanaan wax ka baari karaa wixii aan ka baaray oo researchkii ayaan qoraal ka samayn karaa oo halkaan ku qori karaa. marka si daaqadan igu furnaato si aan wax uga koobi garayo tanna igu furnaato si aan wax ugu qoro. taasi waa mid. sida kale aad u samayn kadhid snap inkaas waxa weeye daaqadii ayaad qaadaysaa waxaad samaynaysaa waa wadaysaa sida u wadid ilaa ay shadow ka samayso ama hoos gadaal ka samayso. markay hoostaasoo gadaal ka samayso waa idin tusaya haddana waa qaadaysaa waa wadaysaa ilaa aragtid hoos gadaal ka baxay sidaasoo kale waa sii daynaysaa. markaas waxay samaysay snap inay samaysay oo geeskaasay kuu madhay wixii kaloo daaqada furnaana geeskaanay kaaga soo saadhay. marka
kaa rabtida markaas weynayn kadha waxaan kaloo samayn karaa haddaan rabo inaan daaqadihii kaloo halkaa furnaa hadda kanoo kale hoosaan dhiga haddaan windowkayga taabto iyo fallaarta hoos tilmaamaysa down arrow markaas saasoo kale ayaan samayn karaa macnaha dhowr daaqadood oo kala duwan ayaan screenka saasoo kale ugu soo saari karaa si aan markaas waxyaalo kala duwan aan halkii mar u sameeyo qaybta labaad waxa weeye inaad samaysid virtual desktop oo macnaha desktop iyo kala duwan oo aan run ahayn marka si aan taa u sameeyo waxaa samaynaysaa meeshaan oo task view-ga haddaad taabatid task view wuxuu u soo saarayaa wixii daaqad furan markaas iyo timeline-kii wixii aad hore u samaynayso oo kale ayuu kuu soo saarayaa marka meeshaan oo waxay odhanaysaa new desktop haddaan rabo inaan desktop oo aan run ahayn oo cusubaan sameeyo waxaan gujinayaa new desktop markaan new desktop gujiyo markaas desktopkaygii hore oo runta ahaa waa kan oon hore u haystay midkan labaadna waa desktop cusub oo aan sameeyey waa virtual desktop marka waxaan furi karaa daaqado kale ayaan furi karaa waxyaalo kale ayaan ku samayn karaa oo markaas desktopkaas kale cusub kasoo ku wada furi karaa marka hadda waxaan haystaa laba desktop oo mid walba wixiisa markaan rabo mid kale inaan tago kan kale saasaan u tegayaa waxaan task viewgaasaan tegayaa kanaan tegayaa wixii aan rabay aan samaynayaa kanaan tegayaa wixii aan rabay aan samaynayaa marka taas waxay ku fududeynaysaa dhowr desktop oo kala duwan inaad fudhid oo markaa mid walba isku mar mid walba saas u isticmaashid labana kaliya ma furi kadhid intaa rabtid ayaa samayn kadhaa oo limit ma leh intaa desktop oo virtual aa samayn kadhid intaa rabtid ayaa furi kadhaa windows 10 waxay kuu fududeysay wixii intii awooddaada desktop aa u baahan tahay inaad fudhid oo screenkaaga markaas qaado waad samayn kadhaa marka taasna waa virtual desktop ama desktopka aan runta ahayn haddii aan settingska ku noqono meeshaan hoose wuxuu odhanayaa show suggestions in your timeline wuxuu ka wadaa macnaha waxyaalihii aada horey u sameynaysay inay timelinekaaga ka soo baxaan si aa markaa dib ugu noqotid oo haddaan taabto hadda task view aan hoos tago waxyaalahan hadda agosto 3 oo kale waxaan sameeyey oo kale halkan waa markii ugu dambeysaan computerka isticmaalo malaha waxyaalihii aan sameynayay baa iga soo baxaya oo hadda systemkan maanan isticmaalin laakiin kaaga haddaa isticmaashay waxaa sameynaysay oo dhan ayaa timelinekaaga kaaga soo baxaya oo markaasaa furi kadha applicationadii kuu furnaa ama aad isticmaashay ama daaqadihii markaas macnaha iyo markaa computerka dami sidoo kale wixii kuu furnaa haddii aad ilowday timelineka unbaa ku noqonaysaa markaas halkaas ayaa timelinekaaga arkadha haddaa on ka dhigtid way hadduu shidan yahay timelineka saasuu kugu soo saaraya hadduusan shidnaydna waxba ma soo saarayo markaas meeshaan hoosena waxay odhanaysaa virtual desktopka aad snap-inka markaad isticmaalaysid inta virtual desktop waxa ka dhigi kadhaa all the desktop amase hal desktop oo markaa kaad isticmaalaysay halkaan odhanaysaa alt tab keyboardka haddaad gujisid alt iyo tab hal mar isku mar aad gujisid oo aad press garaysid waxaa kuu soo baxaya wixii daaqad furan marka waxaad ka dhigi kadhaa wixii daaqad ka furan desktopka aad markaas isticmaalaysid ama wixii daaqad ka furan desktopyada oo virtualka aan runta ahayn oo dhan kulligood marka haddaan alt tab kayga hadda computerkayga taabto wuxuu ii soo saarayaa wixii daaqad furnaa oo ka furan desktopkan aan isticmaalayo oo markaas kaan rabo ayaan tegi karaa haddaan ka dhigo all the desktops markaas oo kulli virtualka sidaa ujeedaan laba daaqadood meeshaan hadda ka arkay afar arkay waayo virtual desktopkayga labaad ayaa laba daaqadood oo kale ka furan yihiin marka saasaan isugu switch garayn karaa oo hadda waxaan joogaa Google Chrome ayaan joogaa laakiin waxay ka furan tahay daaqadan desktopkayga labaad kama furna kan koowaad waxay ka furan tahay kan labaad hadda desktopka lixaad haddaan wax kale oo cusub ka furo kasoo qaad waxaan ka furay Adobe program haddaan alt taabto
markaas Adobe wakaalkaas uu ii soo saaray wixii furnaa oo dhan ayuu ii soo saaraya marka desktop kasta ka furnaadeen marka taasina waa taas marka sidaas ayuu Windows 10 kuugu fududeynayaa inaad hal mar waxyaalo kala duwan aad samaysid adoo isticmaalaya virtual desktop ama desktopka aan runta ahayn iyo snap in Windows oo madaaqadaha adigoo isdul saaraya ama isgees dhigaya marka casharkaasna halkaasaan ku joojinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.